abaar baa waddanka jirta ilaahay waxaan ka baryaa inuu ilaahay abaartii naga soo jibiyo oo ilaahay raxmaad inoo shubo midda kale xukuumaddan maanta dalka ka talinaysa iyo xisbigeeda kulmiye waxaad moodaa nin indhala ninka indhaale madasha uu yimaado jawigeeda lama socdo in lagu faraxsan yahay in lagu murugaysan yahay in dhibaato taallo xukuumadda waxaan ku masaali lahaa nin indhala iyadoo waddanka waxaa soo abaara iyo mashaakil ka jiraan ayaa arkaysaan waxyaabaha la sameynaya iyo waxa ay ka shaqaynayaan haddaan intaa soo dhaafo ayaamihii ugu dambeeyey iminka gobolka togdheer waxaa ka socday arrimo qaarna sax yihiin qaarna ku xume yihiin waa midda koowaad ee magaalada Burco shir baa ka qabsoomay laba beelood oo walaali leeyihiin iyaga ogaa waxay ka wada hadlayeen walaala gacmaha haystana wax dee lagaga maxaan ku dhahay lagu shaqeeyaa meesha may oolin qolan arkay ay saxaafaddu ku leedahay odayaal iyo wax garab iyo madax dhaqameed shirkaa ganafka ku dhuftay horta kuwa waxaan leeyahay odayaal iyo wax garab iyo madax dhaqameed midna may hayne geelkiis bay hayeen la soo ururiyey geelkiis bay haayeenoo rag wada socdo ma ahayn hadalkooda wada arkaysa nin baa meesha ka hadlay wuxuu yidhi qoladaa hore anaa suldaana yay been idiin sheegin habar yoonisay buu waa run tuulo anaa le suldaan baa tahay laakiin suldaankee baa tahay waxaa suldaan u tahay qoladan ma dibadda sidatay igu ridda af lama yartee maalinba meel dee taagan sidoo kale magaalada Burco waxaa ku soo badatay beer dhexe bahal leeyahay tig oo 3 taayir leh dabadna oday gaari yar markatuyo wata ayaa tigtaasi surun walba kaga soo booda haadkii gaarigu mariyay halkii qofku mariyay maalintii dambe baashi khadeen iska tago burbuu qaatay tig meel ka soo boodo muraada kaga dhufto dadkii waa ku soo ruuxay maxaa dhacayo tigay qof iyo gaari mid u noqon weey ramax waxaan leeyahay ramaxow bada saab gobolka wada xukuma iyo nin reero mid u noqaado labada mid noqo midda labaad waxa tiri Siciid cilmi rooble ayaa arinta ka dambeeyay dee Siciid horta Siciid beesha uu qaamaysan yahay oo waa la soo doortay oo cod baa lagu soo doortay isaga beesha uu matali karaa meel buu tagi karaa ay kula socoto beeshii baa la socotay oo hareeraha ka taagnay dadkii soo doortay baan dadku ka mid yahay iyaga gmidaydii oo wakiil u yahay laakiin adigu cidii ku gmatay shaqadeedii baad qabanay shaqa dadka leeyahay baad doonatay waa ceeb waxa soo kale in maalin walba inta dad sidii garam loo qaybinayo kii inta loo soo geliyo la yiraahdo waxa saan u diin inta hadan ka yimaado waxaan u soo noqonayaa xisbigan kulmiye arrintan imika dhaqaajinaya iyo gudoomiye Muuse Bixi barbaru tagi wajiga wax uu kala soo noqdo tuulo yar dhaxalkan uu dabka shita waa magaaladii abdaalo waa lagu casuumi karaa qof bartay deeqada waa lagu siin karaa wuxuu ka yiri odayaashii baxar saafka axmedow meel xun maana wax soo dhigina waana wada hadal odayaashii baxar saaf kortaana ka mid ahay gudidii Muuse madaxtooyada loogu yeeray guddi waxay halkan kaalayo dawladdeenu ka wada hadlayna shirkana wadaano markii xukuumadda ay ku qancisay gudidii oo waliba madaxweyne ku-xigeenku xaadir iyo fadhiyo shirku sidoo yahay iyo in beer shirkada qabsanayso ayuu madaxweyne ku-xigeenku yiri waa shiri kartaan Muuse soo shacab ka soo booday xidh ma shiri kartaan amar madaxweyne ka daba hadal Muuse beeshu waa beeshii Allah ma shiri kartaan cudud aaraariyo iyo ciidan aan waarayn baad ku hanjabtay oo aad culays ku saartay gobolka iyo beeshaba ilaa musharaxoodi cod aan dhibanayn baa jooga meesha ogow oo dadka haday in dhibato inta soo hadhuun baa codayn dad gaadho dad cod doonayso dee ka dhabtay cod rabto ogow ka saal ugu kala hadhayaa Muuse waxaan leeyahay nin yaraan ku loo faray wuxuu lumiyay raacday shirkayaga adiga oo shalay lahaa ma shiri kartaan maantana nooma yeedhin kartay wadadii maxamed xaashumood maraysa arrimaha reeraha gudaha looma galo taadi baa kala daadsan waxaan intaa ku darayaa ninka meesha lagu dilay anna aan dad ugu xigo haddaa daa ileediin anna diiday baan Muuse dakanadan ku haysto hadduu ramaaxiyo cid kale ka damiinanayso ama tuuliyada bakayaad soo kaxaysanayso run baan ku sheegayaa wallahi ana cidinaga ka furfuraynin gobolka saaxil leeyahay horta waa gobol nasiib wanaagsan waxa musharax u ahaa Jamaal Cali Xuseen iyo Cabdiraxmaan Cir laba musharax marka hore balaha haddii labada taayir mid ka banjaro
laba taayiraad ku soconayso ka karuun baad gashataa musharax bay leedahay saaxilo waa cabdiraxmaan cirro codkeedii buu ku fadhiyaa beenna maaha ma idinkiri kartaa waa maya taas codkii uu kaga soo baxay saaxil ayuu ku fadhiyaa isagaa noo musharaxa annaga oodina ab ka dhow oodi ab ka dhow muusow calanka gobolka saaxil cabdiraxmaan baanu dhiibaynaa oo cid noogu xiga annaga hadal wuxuu ku dhan yahay hadal in badan baa yooyootan iyo jaafaajiriqa saxaafaddu batay oo aynu miidiyahun la isku eryanayaaye bal hortaa dib u noqdo oo qolyihiinna wax raadinaya anaa iminka kule aniga tuuleeyo inta xukumayo intii la socotay anigaa kulehe anaa nooligana ka bixin yaa kuu codaya hadday ku soo saarayaan midda labaad dee gobolka saaxil iyo reerku waxay leeyihiin hoggaamiye ruuxiya oo ibraahim dhega weyne halkuu ruuxigu maraaban marayna annagu